ciidamadan oo ku qalabeysanaa dabaabaadka dagaalka noocyada casriga horena u qaatay tababar adag oo loogu talagalay xilliyada dagaalka maadaama ay ku biirayaan ciidamada dagaalka kula jira maleeshiyaadka al-shabaab iyo kuwa howlgalka gaarka ku qaadi doona maleeshiyaadkaasi. deegaanka galgalato ee duleedka magaalada muqdisho waxay ku soo bandhigeen dabrid iyo dhowlatus military waxaana daawanayay taliyaasha militariga booliiska asluubta iyo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka. jenaraal odowa yuusuf raagi abaanduulaha ciidamada xoogga waxa uu sharaxayaa noocyada tababar ciidan ee la siiyey iyo diyaargarowga dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab. muddadii dheereed oo tababarkii noo soo socday iyo muddadii isbuuca aheeday oo halkan hadda aan ku sugannahay oo nooga socda carbisku oo uga socday labada hormood ee ka tirsan ururka 37 ee booliska dableyda ee horinta afaraad iyo horinta saddexaad oo maanta halkan ugu soo gabagaboobay carbiskii halkan uga socday muddada toddobaadka aheeday ka horna soo qaatay waqti dheer soo qaatay tababar kala duwan oo runtii taliya aad ka arki karto muxuu ahaa ii sheeg ay ku dhex jirto sancadoodii ay wataan caafimaadkii. taliyaasha ciidamada booliiska asluubta sareegaas bashiir cabdi maxamed iyo sareeye guud bashiir maxamed jaamac ayaa aaminsan inay muuqato rajadii ugu wanaagsaneed burburka kadib ciidamada xoogga dalkana looga fadhiyo ciribtirka al-shabaab. marka hore waxaan mahad celinaya taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir oo nagu marti qaaday inaan kala soo qayb galno bandhigan maanta la soo bandhigay ee ciidamada soo bandhigeen hadalna wuxuu ku dhan yahay intii taliyaha ciidanka asluubta sheegay sareeye guud bashiir booliis ahaan waqtiyada adag waa saad la socoteen ba ciidanka booliiska wuxuu la falgalaa xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan maantayna tusteen muxuu ahaa wax niyadda noo dhisa waxaana tusteen ciidankayagii inuu soo noolaanayo in niyaddeenu soo noolaanayso qarankeenu inuu soo noolaanayo difaaceenu inuu soo noolaanayo annagana ilaahay nagu samay nafna nagu sii caafimaadna noo kaamila maanta inaanu nimaano indhahayaa ku aragno. ciidankan ayaa helay dhiirigelin iyo dardaaran ciidan waxaana la faray inay si weyn u dhowraan shacbiga iyo qaynuunka dalka u degan. waxayna xasuusinaysaa carbiskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee jiri jiray intaan dagaalada la gelin. waxaan u maleynayaa kani waa kii ugu horreeyey ciidanka cusub ee hadda sanooyinkan dib loo soo abaabulay ilaa iyo carta la sameeyey u malayn maayo ka hor inay dhacday carbis in la sameeyey. marka aad iyo aad baan mahad idinku celinayaa abaanduulaha iyo madaxda hogaamadana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. bilow fiican baan marsiinaynaa ciidankana waxa weeye mar hadduusan carbis samayn marka hore carbisku waa tijaabo qofku waa la tijaabiyaa haddaadan askariga tijaabin kii gaariga waday kii raadiya hayey kii caafimaadka hayey aanad tijaabin marka inaad dagaal hore ka geyso waxaad ku jirtaa waxa la yidhaahdo waa bakhtiyaar nasiib baa tahay. marka ciidanku waxa bakhtiyaar nasiib buu ku dagaalgala hadda bakhtiyaar nasiib inuu ku dagaalgala maaha. militariga Soomaaliya ayaa si weyn iskugu diyaarinaya dagaalka dalka looga xoreynayo nabadiidka inta uusan dhammaan waqtiga dowladda hadda jirta. maxamed xasan cali idaacadii telefishinka qaranka deegaanka galgalato ee duleedka magaalada muqdisho.